رمضان 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 بسم الله السلام عليكم سو دواada dhammaantiin Ramadaan mubaarak casharkeena aynu ku baranayna casharada Ramadaanta ayaynu weli ku dhex jirnaa qaybtii labaad ayaynu gelaynaa maanta hadduu haleydmo afka Jarmalka haddii uu qofku dhaho waa maxay Ramadaan qof ayaad ku tiri ikhaabe Ramadaan deeto wuxuu ku yiri fasis Ramadaan waa maxay deeto waxaad leedahay Ramadaan is der fastenmonat der Muslime Ramadaan is der fastenmonat der Muslime Ramadaan waa bisha soonka ee muslimiinta Das Fasten im Ramadan gehört zu den 5 Säulen des Islams. Das Fasten im Ramadan gehört zu den 5 Säulen des Islams. Das Fasten im Ramadan gehört zu den 5 Säulen des Islams. Soonka bisha Ramadan waa mid ka mid ah 5 tiir ee Islaamka. 5 tiir ee Islaamka soonkuna waa rukun ka mid ah. Der Monat Ramadan ist der Monat in dem der heilige Koran offenbar ist. Der Monat Ramadan ist der Monat in dem der heilige Koran offenbar ist. Bisha Ramadan waa bishii la soo dejiyay Qur'aanka Kariimka ah. Einige Leute sind von Fasten befreit. Dies sind die kleinen Kinder, kranke Menschen, die Reisende und die schwangere Frauen. Einige Leute sind von Fasten befreit. Die sind die kleinen Kinder, kranke Menschen, die Reisende und die schwangere Frauen. Einige Leute sind von Fasten befreit. Die sind die kleinen Kinder, kranken Menschen, die Reisende und die schwangere Frauen. Dadka qaarkiis ama dadka qaarkood waa laga dhaafay soonka. Waa caruurta yaryar, dadka jiran ama dadka xanuunsanaya, kuwa safarka ah iyo haweenka uurka leh. Einige Leute sind von Fasten befreit. Dadka qaarkood waa laga dhaafay soonka. Die sind waxay kala yihiin die kleinen Kinder, caruurta yaryar, kranke Menschen, dadka xanuunsanaya ama dadka jiran, die Reisende, kuwa safarka ah, und iyo die schwangere Frauen, dumarka uurka leh. Kranke Menschen, Reisende und schwangere Frauen können nach dem Ramadan fasten. Kranke Menschen, Reisende und schwangere Frauen können nach dem Ramadan fasten. Dadka jiran ee xanuunsanaya, dadka xanuunsanaya, musaafiriinta iyo haweenka uurka leh way soomi karaan Ramadaan kadib. Ramadaan kadib way soo qalayn karaan. Gabadhii markay uurka lahayd markay dhasho way soo qalayn kartaa. Bilaha kale way soo qalayn kartaa. Sidoo kale qofkii safarka ahaana wuu soo qalayn karaa. Qofkii xanuunsanayana haddii xanuunka haya uu yahay mid uu ka bogsanayo isna wuu soo qalayn karaa. Kranke Menschen, Reisende und schwangere Frauen können nach dem Ramadan fasten. Ich faste von Morgengrauen bis zum Sonnenuntergang. Ich faste von Morgengrauen bis zum Sonnenuntergang. Waxaan soomaa laga bilaabo waaberiga ilaa qorax dhaca. Waaberiga marka salaadii subax ilaa qorax dhaca markii maqribkii la gaadhay qoraxdii dhacdo. Waxaan soomaa laga bilaabo waaberiga ilaa qorax dhaca. Ich faste von Morgengrauen bis zum Sonnenuntergang. maadaama wadankii yahay wadan gaalo dadkoo dhan ma wada garanayaan muslimiintu waxay sameeyaan ama Ramadaantu waxay tahay ma wada garanayaan. Waxa laga yaabaa qof aad isgaranaysa inuu ku dhaho kaale kafee ila soo cab ama uu ku dhaho kaalayo ila cuntadan adna waxaad leedahay nein danke ich faste daher darf ich weder essen noch trinken.
Nein, danke, ich faste. Daher darf ich weder essen noch trinken. May mahadsanid. Waan soomanahay, sidaa daraaddeed iima bannaana inaan wax cuno ama wax cabo. Ama inaan wax cuno ama inaan wax cabo iima bannaana maadaamaan soomanahay. Nein, danke, ich faste. Nein, maya, danke, waad mahadsantay. Ich faste, waan soomanahay. Daher darf ich sidaa daraaddeed iima bannaana weder essen noch trinken. Inaan wax cuno ama wax cabo iima bannaana. Das Fasten brechen. Das Fasten brechen. Das Fasten brechen. Afurka. Die Morgenmahlzeit. Die Morgenmahlzeit. Die Morgenmahlzeit. Suxuurta. halkan baan ku joojinaynaa insha Allah walaalahayga qaaliga. Wixii su'aalaad qabtaan hoos commentiga noogu soo qora. Videoga sii share gareeya si walaalo badan uga faa'iidaystaan. Waad mahadsantihiin. Insha Allah casharka dambe inoo soo socdan wuxuu noqon doonaa isku hambaliyeynta maalinta ciida waxa lagu dhaho af Jarmal aynu baran doonaa insha Allah. Intaynu ka kulmi doonaa cashar kale cusubna. Rabadaan wanaagsan. Fi amaanillah. Wassalaamu calaykum.